marka aad maqasho madaxweynaha ugu awoodda badan caalamka isla markiiba waxaad isweydiinaysaa maxaa lagu sugaa ammaanka madaxweynahaasi. haddaba waxaan kula wadaagayaa xogta gaariga ugu amniga iyo awoodda badan ee uu isticmaalo shakhsi ku nool adduunka, waana gaariga qaaska ee madaxweynaha Mareykanka adeegsado. gaarigan waxaa lagu naanaysaa gorgor, waxna uu awood buuxda u leeyahay inuu iska caabiyo nooc kasta oo weerar ah uga yimaada bannaanka, waxana uu jirkiisa u dulqaadan karaa hubka nuclear-ka iyo sidoo kale kiimikooyinka. gaarigan noociisu waa Cutler DTS, ma jiro ilaa imika gaari noociisa oo kala ah la soo saaray, waxaana farsameeyay shirkadda caanka ee lagu magacaabo General Motors. si guud marka laga warbixiyo gaarigan waxaa ku rakiban aalad ka hortagi karta gantaalada ridada dheer iyo tiknoolajiyad aad u sareysa taasoo la shaqeynaysa jirka aadanaha. qayb kasta oo ka mid ah gaarigaasi waxaa loo sameeyay qaab ku habboon shakhsiga saaran oo ah madaxweynaha Mareykanka, iyadoo laga sii taxadiray khatar kasta oo si kadis ah ku soo food saarta gaariga lagu naanayso gorgorka. taangiga shidaalka ee gaarigan waxaa laga sameeyay agab awood buuxda u leh inuu iska caabiyo haddii la damco in la beegsado ama dab uu ka kaco gaariga dhan, taasoo waxyeeleyn karta ammaanka madaxweynaha. saqafka gaariga ama jirka kore ee gaariga waxa uu ka samaysan yahay bira aad u adag oo aysan u gudbi karin gantaalada iyo maadooyin ka sumaysan, taasoo waxyeeleyn karta madaxweynaha. daaqadda gaariga ayaa sidoo kale waxa ay ka samaysan tahay ilaa 8 lakab oo biraha la isdul saaray, taasi oo daaqad kasta oo ka mid ah gaariga ay ku culays tahay daaqadda diyaaradda Boeing 757. dhanka hoose ee gaariga waxaa ku rakiban saanad taasoo ilaalinaysa haddii ay jirto khatar miino iyo waxyaalo kale oo qarxi kara. gaarigan waxa uu leeyahay taayaro isku jira oo dhexda u taallo bir, haddii uu banjarana uu ku sii socon karo, iyadoo muraayadahaadkuna ay tahay mid aysan u gudbi karin rasaasta noocyadeeda kala duwan. qofka kaxeynaya gaarigan ama darawalka gaariga ayaa ah mid si adag ay u soo tababareen hay-adaha sirdoonka, waxana uu qaadi karaa gaarigani ilaa 7 ruux. madaxweynaha iyo darawalka waxaa u dhaxaysa muraayad aad u adag oo aysan u gudbi karin xabadda, furaheedana waxa kaliya ay heli kara waa madaxweynaha Mareykanka. gaarigan waxa uu leeyahay khad telefoon oo amnigiisu uu sugan yahay, taasoo madaxweynaha uu kula hadli karo meel kasta uu ka doonayo caalamka. haddaba qaybta dambe waxaa ku yaala talaagada ay ku jirto dhiig la nooca hadba markaasi madaxweynihii jooga, iyo sidoo kale oksijiin gaariga xagga dambe kaga rakiban oo haddii dab uu ka kaco gaariga iskiis isku daminaya. qaybta dambe ee gaariga waxa uu ku sitaa kaamirada habeenkii wax lagu arko oo haddii lagama maarmaan ay noqon weydo la adeegsanayo. xagga hore ee gaariga waxa uu ku leeyahay agab xambaarsan sunta dadka ka ilmaysiisa oo loogu talagalay in lagu kala eriyo haddii dad damcaan inay ku soo xumaan gaariga madaxweynaha oo dhererkiisu uu gaarayo 18 feet.